ميديا يا مانتا مشغول كا كدخ تاgan mar yaraan ka ilaahdo muddo dheer ba haweenku kufsiyaan maar lahayn iyo gowrac ba ku marnaa bilayskii milgihiis iyo marinkiisu hayno maatada dhawrana isaga midmid ayo madaxa ka dilay sida ay masiihiin bal masiibadan ayaga ميديا يا مانتا مشغول كا كدخ taagan hadii aan mid ka taabto markii ay wax murgeen habli mooday miciinka saldhig meesha ku yaala askartii milmilaydiyo taliyahoodii maruuray qurac dheer minankeeda maanta waan aragnaaye talow ma isku midba talow ilaa miidiyaha mid kale kala soo dhaxbaxo hadii militariga iyo macruuf ka wariyihii ahaa midka ku sameynayaan بليسان marka ku sameynayaan hadii militariga iyo macruuf wariyihii ahaa bileys maan laaway marka ku sameynayaan tanleediyo maatadii milyuumaadka bulshada codkooduna meel tagayn dibkaasay mudanayaan maxaad u maleynaysan miyaa u micinayaan media iyo maanta mashquulka ka dhex taagan hadii aan mid ka taabto markastoo wax dhacaan sharcigu waa mahuraan oo waa miskiin u gargaaro dadku uu marayay booliskan magantoodii iyo martidooda ahayn waxaan maanta arkay dumar ay makaleeno mataana gacmahoodiyo madaxa uu ka garaacayo milil dhiig ku yaale bal masiibadadan iyo miidiyaha markii ugu yaabadnaa ayaan ku marinayaa mantadan iyo miidiyaha markii ugu yaabadnaa ayaan ku marinayaa maamadan boolisku dilay haday military ahayd mujaahidad weyn ahayd maami iyo hooyaba ahayd midnaba lama xiriinin mawda laga saaraya amaankeenu ma qaadaye miyaanay masiibo iyo miidiyaha iyo maanta mashquulka ka dhex taagan mid yaraan ka idhaahdee maatadeena la laayiyo miyaan maamulkii joogiyo madaxdeenu ogeyn miidiya iyo maanta mashquulka ka dhex taagan annaan mid ka sheegay markii maata la laayay shacab aan mid bahayn iyo mucaaradka ka hadlayay xildhibaanadii meeyay dadweynaha matalayay meel meesha la joogin media iyo maanta mawduucan ku arkay iyo mid yaraan ka tilmaamay maatadan boolisku laayay muusanow iyo qaylo maraaqoodi baxayo dhagahan ku maqlayn iyo maskaxdaana xanuuntay oo murugoonay dartoode madaxweynihii haystiyo miyaanu muuse ogeyn mise uu yar maqnaa hadii uu yar maqnaa miyaanu maba la haysan haweenka Soomaaliyeed waxay iska kaaya haysta taadi iyo dil aan xarad hayn markii hore wuxuu baan mooday in qof liita qof maafiyaana waxaas inay dumarka leynayaan waxaan ogaanay iminka in aanay xarad balahayn la iskaga bilaabayo dumarka la iska leynayo waayo dawladii aan hal meel quraan aan eegaynaan islahayn halkaas baa malaa idinka cadgoyn doonta dadka liita ayaan islahayn halkaasina dawladiina iyadii baa badal laba soo saarayso dad dumarkii leynaysa mar hadii ay dawladii aan eegaynayna ay dumarkii waxaan ku dhisaa laba isugu saarayso awal baa anaga oo ka cabanayna oo aan qof quran noo xukuminaan qof quran noo dilinaan waxaan waajibkayga aan marin iminkana iyadii baa badal gacanta noo qaadaysa waxaan dee sameynaa ma fadhi baba yaalabadii war hadii aan cidiba aan kala lahayn dawladiina ay taabilowday taa waxa ma yaalaan ba mushkilad marka ugu horeysa waxa weeye maanta yahaayeen de waa hooyo iyo inanteedii oo sida qof dhaawaca inay dhaawac muujin saldhiga uga soo gooyaan sida darteed marka ayagii ciday u soo gooyaan ayagii baa mid hor la lagu dhuftay oo biliiskii ku dhuftay markii lagu dhuftayna labadii dhaawac ways ag yaaleen labadiiba halkaas dhiiga ku qalalay labadoodiiba de markay noocaas oo kala tay sharciga biliisku wuxuu ahaa de sharciga ka horeeya qofka oo de qabta biliiskana sharci baa qabanaya de waxaan u leenahay warkaasu de markay halka taagantay waxa ma yaalaan meesha ilaan waa sida la sheegay weeyaane su'aasha kale maskaxda bulshada ka dhex guuxaysa ee la isweydiinaya waxa weeyaan qoyskana waxa ahayn qoys caan ah inta wariyay ahayd marka wax la isweydiinayaa hadii dadkii caanka ahay codkooda meesha dheer tagayay ay tacdiyada lagu sameynayo maxaad u maleynaysaa bulshada inteedii kale ee aan codkooda meel dheer tagaynay
cidina u maqnay ceelo u qodnay soo taa iyo mid ka daran la kulmi mayso ها كواس ويقوين كواس ويقوين waxa weeyaan horta marka hore laamaha amniga gees kastaba ha ahaadaan laamaha amniga waxay u shaqeeyaan dadka shacabka ah oo ay wax ku yihiin oo ay sharciyada u hayaan sharciyada ay gacanta ku hayaanna waxay ahayd ama ay mar walba mas'uuliyadda saaran tahay inay dadka ku ilaaliyaan iyagu ilaa dadka u dhaarteen oo dalka u dhaarteen oo mas'uuliyad baa ka saaran arinta kale la yaabka waxay tahay dadkii doonayay rifeetada iyo dhaawac muujinta ee meesha u soo cabatinka u yimi hadii ay la gacan saaray oo la dilay waa mid qalada qofkana inta cad loo geystaa sharciga dhexdeeda mid sharci sheegaya ma jiro talabaad qofku haduu khaldamo in sharciga inta uga yaal lagu qaadaa un bay ahayd in lagu tacaadilo la jirdiye ma marnaba ma bilaa ma waxa weeyaan hooyadan meesha lagu dilay waxay ahayd mujaahidad anigu iyadan garanaya waxa weeyaan dadku xuquuq bilaadku xuquuq leeyahay xuquuq muwaadin bay marka hore lahayd oo lagu ma xirin xuquuq dhibanay lahayd oo meesha rifeertay soo doonteen oo dhibanay sideen oo lagu ma xirin xuquuq waa askariyad ciidanka qaranka kamid ah xuquuq askari xuquuq ciidan bay lahayd oo lagu ma qadarin waa xanuunsanaysa oo dhakhtar bay ka soo baxday oo lagu ma qadarin waa dumar oo dumarnimo xuquuq bay leeyihiin lagu ma qadarin waa mujaahidad waa naafo مسكح مدح رصاص كيكا تالو لوغما قدرين ومجاهدات ودنكن سو halganto laguma qadarin marka waxaan leeyahay mar hadaan intaaba midnaba la qadarin horta waxa la qadarinayaa meeshii ma yaalaan midda kale anagu markaan mujaahidiinta ama naafada ay salmanahay wadankan wax buuran kuma aan qabin waxaan milge iyo sharaf iyo salaan ahayn iyo ixtiraam aan ahayn kuma aan qabin maamuuskina hadii laga xayuubiyo kuwa yagii dumarka ahaa sida loo jijiidayo anaga laftayda wax noo yaala inay iska yartay baan u malaynaya waar horta askartan in shacabka sidan ula dhaqmaysaa miyaan madaxdeena ogeyn mise way la qabtaa talow waxaan sidee way la qabaan horta xildhibaanadan baarlamaanka waxay ku soo baxeen cod shacab baa doortay shacabkii doortay marka dib loo geystay ee xukuumaddu ay waliba u geystay iyo biliiskaasi ay u geysteen inay ka hadlaan bay xaq u lahaayeen kama hadal maxay ugu eegayaan imika golaha deegaanka ninka ka soo baxay ee gobolka shaqaaqada laga geystay labada dumar loo geystay isdhalay ninkii ka soo baxay codkoodu ku soo baxay inuu u hadlo xuquuqdooda u doono ayuu xaq u leeyahay Soomaaliland marka ay arrimuhu murgaan meel baa jirto loo noqdo marjac bay leedahay waxa weeyaan golaha guurtidu xaq waxay u leedahay inay arrintaas hoos u eegto oo ay ka hadasho sax kama hadlayaan marka maxaynu meesha yaal bal idinka weydiiyay waxaan leeyahay mudane madaxweyne wadarta dhibaatada meesha taala waxa weeye laba qof wasdhalay oo family ayaa waxyeelo loo geystay saldhigaas loo geystay qaladkii iyo wixii ku dhacay marxaatiyadii way haystaan saldhigiina wuu iska difaacay booliska lama wada oran karo way boolisku qaybo waxaan buu leeyahay oo booliska lagu wada eedayn karo laakiin meeshaan oo eedaynana waa saldhiga qudhac dheer yacni waxyeeladii uu geystay ayuu marlabaadkiina ay dafirayaan oo dacwad ka furteen waxaan u aragnaa marka maskaxda shaqaynaysa caadiga ah in ay dagaal doonayaan inay soo dagaal tagaan kuwii waxaan u geystay bay dagaal tagaan la soo dagaalami lahayn waxay u soo arteen ammaan ahaan bay u soo galeen meesha marka waxa leeyahay mudane madaxweyne arrinta madax meel ka sareeyo la taabtaa ma jirtee hoos u day wax ka qabo hadii kale meel halka ka fog baa laga dooni doonaa